koox wariyayaal ah oo baaritaan ku sameeyay ciqaabta lagu hayo muslimiinta dalka Shiinaha u dhalatay ayaa sheegay inay soo xaqiijiyeen xeriyooyin qarsoodi ah oo ku yaala dhulka lamadegaanka ah ee wadanka Shiinaha. goobaha qarsoodiga ah ee muslimiinta lagu ciqaabo waxa wadanka Shiinuhu uu ku sheegay inay yihiin goobo loo adeegsado tababarada dhinaca farsamada. goobahaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa loo adeegsado in lagu ciqaabo muslimiinta dalka Shiinaha ku nool si ay diintooda uga baxaan ama aragtida diimeed ay aaminsan yihiin looga bedelo. warbixintan ayaa waxa lagu sheegay cidii hal mar gasha xarumahaasi ama xabsiyadaasi in ciqaabta loogu talagalay in lagu bedelo fikirkooda iska daayay waxaaba xitaa bedelmaya qofka midabkiisa. sidoo kale waxa la sheegay inuu bedelmayo jirkiisa iyo bini'aadanimadiisa intaba. dawladda wadanka Shiinuhu waxa ay ku andacoonaysaa inay xarumahaasi yihiin goobo waxbarasho. goobta ugu weyn ee muslimiinta u ifaarey dalkaasi Shiinaha lagu ciqaabo waxa ay ku taala dhulka lamadegaanka ah ee ku yaala galbeedka Janjanka oo ah degmo yar oo ku taala goobta lagu magacaabo Dabanchen. darbiga xabsigan ku wareegsan waxa uu gaarayaa 2 kiiloomitir waxaana darbiga ka sii dul dhisan 16 guri kuwaasoo shuba oo askarta ilaaliso maxaabiista ay adeegsadaan. waxaana la sheegay cadeymo cad oo muujinayso in dawladda wadanka Shiinuhu muwaadiniinta indha yarta ah ee diinta Islaamka haysta uu ku qarinayo goobtan iyo goobo kale oo la mid ah oo ku yaala dalka qaybihiisa kala duwan isla markaana tacaddi loogu geysto. shuruudaha kaliya ee uu qofku xabsigan ku mutaysan karo ayaa waxa ay tahay inuu qofku yahay qof muslina oo Shiinaha u dhashay isla markaana ka soo jeeda baa la yiri qowmiyadda Uighur. dadka iyagu ku nool deegaanka uu xabsigaasi ku yaalo marka aan weydiino bay yiraahdeen wariyayaasha xeradan weyn maxay tahay cabsi darteed ayay gariirayaan. qaarkoodna waliba waxa ay ku sheegayaan oo kaliya inay goobtu tahay goob waxbarasho. waxa haddaba yaaba waa xarun waxbarasho oo adduunyada ka qarsoon. tiraba 1.5 bilyan oo dadka ku nool dalkaasi Shiinaha waxa ay muslimiinta Uighur ka yihiin 10 milyan oo kaliya. afka Shiinaha kuma hadlaan oo afkoodu waa Turkiik. muslimiinta halka ku nool haweenkooda gamba yar oo kaliya oo ay madaxa saartaan waxaan ka ahayn looma ogola xijaabkana warkiisaba iska daa isaga. qofkii bisha Ramadaanka soomo ciqaab ayuu la kulmayaa waana la garaacayaa. sidoo kale qasab ayaa soonka lagaga jabinayaa. salaada haddii aad ku tukato masaajid halka ku yaala xabsi ayaad mutaysanaysaa. qofka isagu muslimka ah haddii uu garhka la baxona waxaaba lagu qaadayaa ciqaabta anshax xumada ee ugu adag waana laga xiirayaa. Shiinaha diintiisu waa hal mid ayaa la yidhi taasoo ah shuuciyadda waxaana la aaminsanaa oo laga dambeeya keligii madaxweynaha lagu magacaabo Xi Jinping waa madaxweynaha wadankaasi Shiinaha. meel masaajidka aan sidaa uga fogeyn oo odayaal gadh waaweynaa oo gadhkii waliba iska xiiray oo fadhiya ayaanu ku aragnay. waxaanuna weydiinay dadkii masaajidkan ku tukanayay aaway ayay yiraahdeen wariyayaashu. mid ka mid ah odayaashaas oo isagu gacanta afka saaraya oo calaamad ahaan noogu muujinaya inaanu iska aamuso oo afka yaga haysano ayuu haddana mid kale oo dhinac fadhiyay cod aad u gaaban waxa uu nagu yiri cid masaajidkan timaada ma jidho. wararka ayaa sheegaya in dalxiisayaashuna ay sawirro ku galeen masaajidka aan salaada lagu tukanay cidlada iska taagan. waxaana noo caddaatay bay yiraahdeen wariyayaashaasi masaajidka magaalada iyo gobolkaasi ku yaala oo dhan inay dalxiisayaashu booqdaan mooyaane inaan muslimiinta loo ogolayn. Saciid Axmed Tamreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star Burco.